madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Mudane Cali Gudlaabe Xuseen ayaa maanta xariga ka jaray TV-ga dowlad goboleedka Hirshabelle kadib munaasabad ka dhacday xarunta cusub ee telefishinka. munaasabadda xarig jarka TV-ga waxaa ka soo qayb galay labada gole ee dowlad goboleedka Hirshabelle, maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe kan degmada Jowhar iyo bulshada qaybadeeda kala duwan. oo maalin farxadeed waxaa goobta ka hadlay Hirshabelle ugu horeyn ay yeelatay telefishin oo maalin farxadeed maadaama ay maartay Hirshabelle ugu horeyn ay yeelatay telefishin heeda in maartay telefishin ay laga baahiyo inay yeelato aad iyo aad soo dhaweynaa intii ka gacan ka geysatay iyo madaxweynaha ugu horeeyna waxaan leenahay aad iyo aad ugu mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. madaxweynaha waxaa munaasabada ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Dr. Abdulxakiin Luqmaan Xaaji Maxamed iyo gudoomiyaha ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabelle Mahad Xasan Cusmaan. waxaad ogtihiin in codkaaga dadkaaga aad geersiisato aad marti ugu noqoto telefisyon kale dhibaatada ay leedahay laga yaabo waqtigii loo baahnaa inuusan gaarin. waxaa maanta aan bogaadinaynaa bogaadinta koowaadna aan siinaynaa madaxweynaheena sharafta leh ballanqaadkii uu ka ballanqaaday 100 maalmood gudahood inuu keeni doono telefisyoonka kana howlgalay mar allaala markii la doortay maantana aan u joogno xafladiisii furitaanka. waan ka mahad celinaynaa madaxweynaha, waxaan leenahay waa ku mahadsan tahay maadaama madaxweynaadkii 100 maalmood ugu horeeyay oo 3 bari kaaga harsan tahay ballanqaadkii aad ballanqaaday oo runtii oo kamid ahay TV-ga inaad fulisay runtii waa kugu amaanaynaa waana kugu baraarujinaynaa. waxaan hubaa oo makhraati ka ahay markii lagu doortay 11kii bishii 11aad sanadkii hore habeenkii lagu doortay saacad kadib waxaan filayaa gudoomiyaha baarlamaanka uu la joogay isla habeenkiiba saacad kadib inaad shaqo gashay adiga oo runtii markiiba bilaabay inay Hirshabelle heshay TV cusub marihiina runtii maanta la goranayo oo kugu baraarujinaynaa waana kugu amaanaynaa. ugu dambeyn waxaa madasha ka hadlay madaxweynaha Hirshabelle Mudane Cali Gudlaabe Xuseen. allah ayaa noogu mahad celinaynaa oo noo suuro geliyay hawshaas. waxaa sidoo kale intood ballanqaadyada kamid ahay idaacad ay yeelato dowlad goboleedka Hirshabelle. idaacaddu iyadana waa taalaa, hawsheedina waa socotaa, maraan dheerayn iyadana waa xiriga laga jaraa. waxyaalaha aan muhiimadda koobaad aan siinayno hore aan u sheegno inaan siinayno waxaa kamid ahay dib u heshiisiinta. bilow fiican ayaan joognaa. waxaad ogtihiin beelo walaalahay ku dagaalamay gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan degmada Cadale in dib u heshiisiin halkan looga furay muddo dheerna oo colkaas iyo dhibaatadaas ay dhex teelay heshiisna ay kala looga halkan ay ku saxiixeen si nabadgelyana ay hadda ku wada nool yihiin. insha Allah wixii dhamana waa dhameystiri doona haddii ay raalli ka noqdo. waxa kale noo suura galay ciidana beelo walaalahay ku dagaalamo gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Matabaan iyo eeriyadeeda dad iyo gaadiid ay kala haysteen inaan dhex galnay dadkii deegaankana aan la hadalnay ay suuro gashay in gaadiidkii iyo dadkii iyagoo nabada aan ka dayno ay guryahoodii tagaan iyagoo nabadana taasuna way dhacday. allahna uga mahad celinaynaa wixii dhamana iyadana waa dhameystiraynaa dib u heshiisiintaas horaan u wadayna haddii ay raalli ka noqdo. waxaa naga go-an ummadda Hirshabelle inay nabadgelyo iyo walaaltinimo iyo diris wanaag ay ku wada noolaadaan. meel kastee culays ka jiro iyo meel kastee colaado ka jirtana waa tegaynaa, gogol nabadeedaan u dhigaynaa insha Allah haddii ay raalli ka noqdo. Yusni Maxamed Axmed, Bulsha TV, Jowhar. tahay macmiil in shirkadda Somtal ay ku daafurtay wajigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai